الله ونحريستي أجاسمه إذا عدا هو نصيب سعيد تهليل أحمد أي آسي سمانتا وحاو قدع حبالها كيلومتر 16 دولات كمجالة مقدشو aadka marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona dhammaan dadkaasi uga baryaamihii abuurtay inuu ka waraabiyo jannadii firdowsa maadaama ay yiraahdeen dalbaro lagu dilay marxuumka gudoomiyaha golaha saxaafadda qaranka Yuusuf Bari oo ay marxuumka muddo ka shaqeynayeen ayaa waxa uu ka warbixinayaa taariikh nololeedkiisa inta uu ka xasuusto. horta waxaan tacsi u dirayaa intii uu ka geeriyooday Saciid Tahliil Axmed. Saciid Allah u naxariisto eheladiisii iyo qaraabadii iyo asxaabtii faraha badnaa ee muddadii uu ku dhex jiray saxaafadda ayaan horta tacsi u dirayaa. Saciid muddadu 20 iyo dhowr sano ama 30 sano ku dhawaad waa shaqeynay. Bari waxaan iskala shaqeynaynay idaacadda raadiyo Muqdisho. marka waxaan raggii marka xamar ku haray oo aan ka bixin magaalada oo 18 sano ku dhex jiray dibka magaalada Muqdisho ka dhacay Soomaaliya ka dhacay rag ka warhayo saxaafadda kamid ah joogay baan ahayn ciidan kastoo marka u shaqeynayay Horn Africa anigu dhinaca kale aan ka shaqeynayay waana soo dadaalay Saciid wuxuu ahaa in ka qayb qaatay ugu horreyn furitaankii idaacadda Horn Africa بدنا صحافته وكل حجري وحنين هالكر وشغل عاد مشعل مدري أنا في شقينين وحاشتا شجع برنامج توصار وحي كليهين وراقية برنامج توصار يكلين لكن هو شيء برنامج بالرئيس روحه رقم برنامج كذا كون أتكلمها ولين ما وصل لكم جناح اللي هذا عن كره هذا لما كل من يعناني أنت بدو شقيني أنت حسسته marka Allah u naxariisto in uu kor u ahaa in saaxiibkeenu ahaa bulshadan aad u taqaano oo bulshada aad u dhex shaqeeyay marka ana kulli wuxuu ku dhashay adigu lixdaneeyadii uu dhashay sida ka warqabo oo isku soconay magaalooyinka Ceelbuur iyo meelahaas ayaan filayaa in ku dhashay laakiin waxaan ahayn dadka kaliya oo isku dhow oo aad u wada shaqeynay markii soorana wuxuu ka baxay isagoo dugsigiisa sare iyo hoose iyo jaamacadda inta uu ku dhamay magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Saciid Tahliil Axmed agaasimihii idaacadda Horn Africa ee magaalada Muqdisho ayaa shalay kooxo bastoolada ku hubeysan waxa ay ku toogteen gudaha suuqa Bakaara xilli agaasimayaasha idaacadaha magaalada Muqdisho ay kulan ugu yeereen xoogaga al-shabaab waxaana dhammaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay cambaarayeen falkan naxdinta leh ee lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn Africa Saciid Tahliil Axmed. markii laga soo tagay ahaan wariyaasha ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa waxa kaliya idaacadda Horn Africa ee magaalada Muqdisho uga geeriyooday magaalada Muqdisho agaasimihii idaacadaha mataanaha ee Horn Africa iyo sidoo kale idaacadda Capital Voice waa agaasimayaashii idaacaddii Capital Voice Mahad Ahmed Cilmi iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda Horn Africa علي إيمان شرماركة وحنا دمان دتك halkan ku sugan ay uga baryayaan agaasimihi idaacadda Horn Africa shalayto ay ka hubeysan ay ku dileen magaalada Muqdisho inuu jannadii baka waraabiyo Cabdirasaaq Miro Dhoore Horn Cable TV magaalada Muqdisho.